Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraysa u dhantihiinba soo dhawaada fadlan haddii aad youtube-ka subscribe inoo saarin haddii aad nala socotayna aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Maanta waxaan idin wadaa oo aan doonayaa inaan sameeyo World Cup koobka adduunka saadaalintiisa ayaan rabaa inaan sameeyo anoo ka bilaabayo guruubyada last 16 ilaa quarter final, semi final, finals ayaan wadi doonaa. Marka halkan gruupkan waxaan isleeyahay waxaa kasoo bixi doona Netherland oo number 1 soo geli doonto, Senegal, Qatar ayaa number 3 ku dhameysan doonto, halka Ecuador ay number 4 ay ku dhameysan doonto. Sidoo kale group B sida ujeedaan England iyo Iran iyo USA iyo Wales ay ku jiraan. Inta marka aan fiiriyo England ayaa aniga number 1 ay u soo baxayso, halka Wales ay igu xigayso number 2. USA iyo Iran, USA ayaan leeyahay number 3 ku dhameysanayso, halka Iran ay number 4 iyaduna ay ku dhameysan doonto, and that is group B. Group C waxaa ku jira Argentina iyo Saudi Arabia, Mexico iyo Poland. Tanna waa iska fududaan u maleynayaa. Group 1ka kolley waxaa kasoo baxayo qaramada aadka u xoog badan, marka Argentina, Poland ayaan leeyahay labada ayaa kasoo bixi doona groupkan. Mexico iyo Saudi Arabiana number 3 iyo number 4 ayay ku kala dhameysan doonaan. Halkani waa group D sida arkaysaan, France, Australia, Denmark and Tunisia ayaa ku jiraan. Marka dad baa waxaa laga yaabaa inay isdahaan doorashadeedu halkan waxaan ka dooranayaa Denmark inay number 1 kusoo baxayso, waayo iyada ayaan isleeyahay individual players markii la play ciyaaryahan uma fiicna, laakiin qaran ahaan ay aad ugu fiicnaan Euro hadda. Marka waxaan isleeyahay France ayaa ka hormari doona oo ku dhameyn doona, labadooda ayaana kasoo bixi doona, halka Australia number 3, number 4 Tunisia ay ku dhameysan doonto. Group E haddaan soo aado isagana, group E saa ka arkaysaan Spain iyo waxaa ku jiro Costa Rica, Germany iyo Japan ayaa iskula jiraan. Halkana waxaan u maleynayaa Spain inay kusoo bixi doonto. Germany kama helin Euro-ga hadda qaabka ay u ciyaareysay, inkastoo aan lahayn number 2 ay soo geli doontaa, iyadana way soo bixi doontaa, halka Costa Rica ay number 3 ku dhameysan doonto, number 4na Japan ay ku dhameysan doonto. Taana waa group E. Weli gruubyada ayaan ku jirnaa. Gruubyadana sidaa ogtihiin qaramada xoog badan ayaa kasoo baxay ciyaaryahanada fiican haysto. Group F, Belgium ayaa ku jira, Canada iyo Morocco iyo Croatia. Belgium iyo Croatia always waxaan aadayaa Croatia inay number 1 iyada kusoo bixi doonto, waayo iyada ayaa ciyaaryahano fiican haysata, halka Belgium number 2 aan oranayo. Morocco iyo Canada waxaan isleeyahay in ay Morocco number 3 ku dhameysan doonto, halka Canada number 4 ay ku dhameysan doonto. Group F-na sidaa ayaan ku saadaalinayaa. Group G oo xoogaa yara adagoo qaramo fiican ku jiraan ayaa isna ah Brazil, Serbia, Switzerland and Cameroon, halka aan isleeyahay marka Brazil ayaa number 1 kusoo bixi doonta, Switzerland ayaa xigi doonta, halka Serbia ay number 3 ay soo geli doonto sidaan isleeyahay, Cameroon ay ku dhameysan doonta number 4, and that is your group G. Haddii aan kusii soconno group H, iyaduna waxaa ku jira Portugal, Ghana, Uruguay and Korea. Iyaduna halkani waxaan isleeyahay tiimka ugu xooga badan ee aan arko waa Portugal kusoo bixi doona, followed by Uruguay ayaa soo raaci doonta ayaan isleeyahay, halka Ghana ay number 3 ku dhameysan doonto, Korea iyaduna number 4 ay ku dhameysan doonto, and that is group H. Aan aadna markaa knockout stage-ka iyo halkii la isku reereebayay aan aragno waxa inoo soo baxa. Round of 16 waxaa inoo soo baxay Netherland iyo Wales. Halkani waxaan u maleynayaa inay Netherland ay soo bixi doonto, waayo ayada ayaan u maleynayaa inay ciyaaryahana adag ay haysato. Sidoo kale Argentina iyo France ayaa iskugu keena aaday sidoo kale. What a game! waxyaabaha caadi ahna la isugu keen xulay. Halkan waxaan maleynayaa inay Argentina ay soo bixi doonto, iyadoo France waliba Mbappe iyo Giroud iyo Benzema iyo rag ay u joogaan, hase ahaatee quality-ga iyo markaan ag dhigay iyo Argentina waxaan u maleynayaa inuu show qurux badan uu ka qaadan doono Messi. Halka Spain iyo Belgium-na tanina waxaan aadayaa Spain, maadaama Belgium aanan ku farxin ciyaaryahanadooda iyo Euro-gii hadda u dambeeyayba qaabkii ay u ciyaarayeen.
so halkaana labada ayaa iga soo baxayo oo maartay quarter final aadayo. Sidoo kale Brazil iyo Uruguay ayaguna waxay noqon doonaan game aad u adag. Halkaan isleeyahay Brazil ayaa kusoo bixi doonta isleeyahay. Sidoo kale England iyo Senegal Mane waxaan u malayn doonaa inuu dadaali doono maadaama uu soo gaaray round of 16 halkana maartay ay ku hari doono oo England ay ku reebi doonto. Denmark iyo Poland waxaan u malaynayaa inay maartay halkan Denmark ay kusoo bixi doonto. Poland ciyaaryahannadeeda waxa aanu laga yaqaano oo maartay tartami kara waxaa meesha joogo Haaland ayaan oran Lewandowski. So marka halka ay ku hari doonaan isleeyahay Costa maartay Croatia iyo Germany-na game adag ayuu noqon doonaa. Game-kan hase ahaatee Croatia ayaan ka soo qabanaya isleeyahay iyada ayaa soo bixi doonta. Game-ka u dambeeya ee round of 16 Portugal versus Switzerland ayaa isna game-kan game aad u adag ah maadaama maartay Switzerland aan maartay qaranka mar walba oo maartay lees ay tahay xaggana tiim qaramo waaweyn ka soo dhaxbaxa. Hase ahaatee waxaan isleeyahay meeshan way ku hari doontaa maadaama World Cup ay tahay meeshan Euro oo aysan ahayn. Okay, quarter final si isugu kana aaday game adag ee isugu kana aaday Netherlands versus Argentina. Halkaana Argentina ayaan ku soo saaraya. Spain iyo Brazil waxaan isleeyahay halkan physical game-kooda marka aan fiiriyay ciyaaryahanada Brazil ayaa halkani soo bixi doonta isleeyahay oo Spain meesha ay ku hari doontaa maadaama khadkooda dhexe ay ciyaaryahanno waaweyn aysan taagnayn oo Gavi iyo rag ay taagan yihiin yaryar. Okay, aan ku socono marka England iyo Denmark waxaan maleynayaa Denmark dadaalkeeda inuu halkan ku hari doono oo ay halkaa ka soo bixi doonto England maadaama ay maartay sanadkan quality-geeda uu aad u badan yahay ciyaaryahanada fiican ee haystaan. Croatia iyo Portugal ayaa isna game asagana aad u qurux badnaan doono oo haddii ay isku soo aadaan noqon doona game asagana aad u qurux badan oo maartay xiisihiisa leh. Hase ahaatee halkani waxaan oranayaa Portugal ayaa sanadkan kusoo bixi doonta. Okay, that was quarter final. Okay, semi-final kan ayaa isugu kana aaday Argentina versus Brazil ay isku aadeen. Game tough ah adag tahay in si fudud lagu maartay saadaaliyo quality labada team marka aad fiiriso. Vinicius Juniors, Gabriel Martinelli, Jesus, ragga ay wataan iyo maartay raggan xitaa kama yara laftirkooda. Messi kaliya la fiirin Paulo Dybala ayaa meesha dheelay, De Paul ayaa dheelhayo, Di Maria ayaa ciyaarayo. Waliba defensive marka la xitaa aad ay u adag yihiin marka Argentina ayaa igu soo baxaysa halkaas. Okay, game-ka xiga isna waa England iyo Portugal. Waa a game asagana game aan caadi ahayn ayuu noqon doonaa. Halkani waxaan u malayn doonaa England ciyaaryahannadeeda yaryar meesha ay ku hari doonaan waayo u malaynaa inay ka maartay Joao Cancelo iyo Cristiano Ronaldo iyo Bernardo Silva iyo Bruno Fernandes ragga inay u istaagi doonaan u malayn maayo. So ayaga ayaa halkaa kasoo baxay. Wow, final waxaa isugu yimid laba goat laba libaax ayaa isugu yimid, laba qaran oo aad u waaweyn markii la dhaho World Cup iyo koobka adduunka ciyaaristiisa. So finalkan yaa predict gareynaya yaa qaadi doona game-kani. Final ma isla imaan doonaan raggan. Waa game of football haddii ay labadan isku soo aadaan probably wuxuu noqon doonaa midka ugu xiisaha badan World Cup ugu xiisaha badnaa ayuu noqon doonaa haddii isku soo aadaan. Warkan idinkaba ma idin daaya akhyaaray, idinkaba ma idin daaya kan idinkama predict gareynaysaan saadaalintiisu ma idinkaga haraa mise waa isku tuuraa madax. Halkani sidaan u malaynayo cidisha ugu qurux badan soo dhigi doonto horta labada team waxaa weeyaan labaduba ciyaaryahanno world class u joogo, ciyaar qurux badan waaba la soo bandhigi doonaaba. Hase ahaatee Argentina ayaan u malaynayaa sanadkan inay ku guuleysan doonto World Cup-ka. Messi-na uu ahaan doono World Cup-kii ugu dambeeyay. So Cristiano Ronaldo ayaan fan u ahay laakiin maartay marka aan fiiriyo World Cup waxaan u maleynayaa inay meeshan ay maartay sanadkan si unbaa iskaga qaatay in Argentina ay badin doonto sidaa unbaa la i tusay.
marka wakiya akhyaraysa daalintiida maxaa kale leedihiin idinku maxaa is leedihiin commentay ula wadaaga fikradihiina sanadkan yaa waalka qaadi doono maartay yaada is leedahay uu qaadi doonaa uu qalmaa marka wixii fikradaha kulli down below inta waxaad igula wadaagaysaan qolta commentiga haddana sida ayaan idinkaga degayaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.